إن شاء الله تعالى وكلمة كوبا وخصابسا أحكام حجك iyo waxyaalaha cusub ee soo diriyay oo ku xeeran gudashada xajka laba muxaadaray ahaayeen marka waa insha Allah taala oo isdhex gelinaynaa axkaam xaj bay soo wada hoos galaan insha Allah taala xajka ahamiyada uu leeyahay fadliga uu leeyahay iyo amaliyan sida loo xajiyoba ندودي حلي باقصها سنيد إن شاء الله تعالى النعا وهدي الله كريقه والأحكام تيدا وححفو كوة فيقو يا أركان تيسا شروط تيسا محظورات تيسا يوحا كلا سمية النسوكية تيسا النوعية تيسا وكالبوحو بين وحكاك المام دونا إن شاء الله تعالى والله يقعنا لكن ومن باب التذكير يناس حسوس النه سيدان ودوغنا إخوتي في الله حجك وركن كم إذا أركان الإسلام وشنطة إلهي نغفر الكيالي قرآن في سدحديثة سنة النبي عليه الصلاة والسلام إجماع أمد المسلمين انتوا بأيكو سبناته إلهي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا إلهي وحكو لي هددك إني أسو قستان بيت كيسة إدي شد أهانا ودعو استطاع له نبي نوح عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا ضروا إلهي وكفر لي حجية وإلهي بيت كيسة وقستا إذنكو إلهي كوينينيا شعيرضا يهرب لغا كانت الصالفة كم إذا نسوق دانيا مركا حجك وحكوة أجيبا شروط بوليه وحكوة أجيبا شروط الوجوب لإلهي مركا لصور ريانا شن شردي ayaa laga eegaya qofka ay ku kulanto ayaa wax laga rabaa inuu soo xajiyo shardiga koowaad waa inuu qofku islaam yahay gaalku ma waajibtay cid laga rabaa waa qofka muslimka ah oo islaamka ayaga gaalka ee xaramka looma ogola mana soo xajin karo hadduu xajiyana ka asixi maayo haddii xataa la yiraahdo furuucda sharaa'icda waa laga rabaa gaalka waa lagu مخاطب وفيه الإسلام لما كور يسأل إسلامه وحويه والله عقابه يا موجي هذا هو دنبيات الله كرينا يا موجي قفان إسلام هاي حج كما الصحيح سيادة رد شرط الكوباد وإسلامين شرط الله بعدنا وعقل يوم قف هو إنه مير قبع ضدك دمر كأهو بمن أمام مسكحهان ماذا حكاه موصل iyagana ku waajibi maayo oo dee takliif ma saarno sidoo kale sabigii isagana waxa weeye ku waajibi maayo oo inuu qofku qaangaar yahay marka islaam iyo caqliga iyo qaangaarnimada inta badan axkaamta shariicada oo dhan marka wujuub shuruudul wujuub laga hadlayo saddexdaas ma kala hadhaan oo waxa weeye axkaamta takliifiga ah qof kasta oo muslina oo qaangaar ah oo miir qaba ba inta badan laga doonaya ninkan xanuunsan maskaxda ka xanuunsan iyo ilmahan yar qofka waalada isagu la xajka niyu u baahan yahay oo xajka asixi maayo laakiin ilmaha yar haddii uu tamyiis gaaro xajkiisu wuu asaxaya laakiin waxaan ka gudaynin xajadii islaam sunnay noqonaysaa isaguna ajar buu ka helayaa waalidkiina ajar buu ka helayaa sidoo kale waxaa loo shardiyaa xorriyad oo addoonkii kuma waajib sababta addoonka shardiga ama arrinta labaad oo ah istidaacada shardiga shanaad
ayaan badanaaba laga helin inuu qofku markuu addoon yahay dee addoonku wax ma mulkiyo oo xoolo ma leh xajkiina inta badan wuxuu u baahan yahay xoolo marka haddii addoonku uu xajiyo xajkiisa waa asaxayaa laakiin waxaanu ka gudaynin sidii ilmihii mumayaska ahaa oo kale xajadii islaamka oo markuu xoroobo hadhow xajkii islaamka waa lagu leeyahay waa laga rabaa shardiga ugu dambeeyo shanaadna alistidaacatu weeye oo aayadda qur-aankana waa taa ilaahay ku sheegay walilaahi cala nnaasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila nebiguna calayhi salaatu wasalaam markaanta islaamka markuu tirinayay rugniga shanaad wuxuu ka dhigay in ilaahay beytkiisa loo xafiyo qofkii awooda man istadaaca ilayhi sabiila marka istidaacadaasi waxay noqotaa xagga jeebka iyo xagga jidhka labadaba way gashay macnaha badanka iyo maalka ayaa labadiiba istidaaco qofka laga rabaado waxa laga yaabo inuu qofkii awooddii dhaqaale ee uu xajka ku tegi lahaa uu leeyahay laakiin uusan lahayn kartidii iyo awooddii jidheed ee uu ku godan lahaa manaasigta xajka sidaa darteed qofku waa inuu jidh ahaanna awoodaa maal ahaanna awoodaa jidka uu marayaana waa inuu aamin yahdo oo waxa weeye sayrkiisuna uu waxa weye si nabadgelyo ah ku gaari karaa waxyaalahan kale oo cusub oo soo kordhayna iyada lafteedu istidaacadii qayb bay ka noqotaadoo sharci ahaan waa inuu meeshii tegi karaa haddaanad baasiboorba lahayn oo aad sharci aad ku tagto meeshii lahayn dee waxa weeye wujuubkii ku fuuli maayo waa kaa dhacaya sidoo kale meelaha qaar waxaa laga yaabaa waddamada qaar in da' lagu xidhoba oo la idhaahdo waxaa xajin kara wixii da'da kontonka iyo wixii ka weyn oo qofku hadduu ka yar yahayba aan loo ogolayn in la siiyo tasriix iyo ogolaansho oo xajka ku aada waxaa jira meelaha qaar kuyuu lagu jiro oo sida loo soo kala horeeyo waxa weeye loo ictibaariyo iyadana waxa istidaacadii bay soo gelayaan adigoo xoolihii haya caafimaad qaba sharcigii haysta ayaa laga yaabaa inay ku xadhibto fiyuuga iyo waxa weeye faylka lagu jira ee sida loo kala horeeyo dad yaroo kooban dal walba la siinayo marka qofkii awooda sharci ahaan maal ahaan waxa weeye badan ahaan waa laga doonaya